maalin dhaweyto haweeney baa soo wacday in badan bay telefoonka igu soo celcelisay anna mashquul baan ahaa xafiiskayaan joogay qiso markii dambaan la hadlay dabcan qofka iyo magaciisa iyo ma sheegayno annagoo ilaalinayna maaragtay wax badan laakiin qisadu waa qiso xanuun badan waxaan idinku sheegayna waxa weeye waxaan u baahannahay inaan ka taxadarno haweeneydaas waan wada hadalnay telefoonkii bay igula hadashay waxay tiri iyadoo ooyeysa oo xitaa aan hadli karin oo hadalkeeda aan fahmi la'ahay oohinta ay ooyeysa darteed yaa waxay ii sheegtay arrin aan aad uga naxay runtii oo shoog igu riday waxay igu tidhi maanta wiil aan dhalay oo 13 jir ah yaa wuxuu ii sheegay inay niman ciyaalo suuqiin ah oo superpower iyo wax la mid ah ay isticmaalayeen muddo 7 sano years ma noolaba wiilku dugsiga markuu ka soo baxo jidkay u istaagaan bal dugsigay ugu tagaan iskuulkay ugu tagaan 7 sano bay isticmaalayeen rag waaweyn dhowr iyo 20 jir ah ma noola haweeneydii wax alla waxay samayso ma laha way iska ooyeysaa maxaan sameeyaa bay leedahay ila taliya waxay la qabta wiilku intuu kaxeeyey ayuu wuxuu tusay qaar ka mida raggii faaxishada ku sameynayay korka ka tusay waa islii meel kale ma الله المستعان gabadhii haweeneydii ama hooyadii waxay tiri aabihiis hadduu waxa maqlo suurtagal waxa horta nimankii inuu dilo oo gacan ula tago oo kow ka siiyo dilba dhiig inuu daadiyo shakiga ma jiro inuu dili taaday dhacdana waa ka sii daran tahay sheekada bal xataa wiilkan ka yaabay inuu dilo uu yiraahdo khalaas kan faa'iido ma laha uma sheegi karto odayga way ka baqaysaa waxay kaloo ku leedahay nimanka hadda taqaanaan dhimal askar baa loo dhibay wala xiri baan ku yiri dad askaraho ciidan oo muslimiina jireen hayaga tii loo sheego nimanka waxa sameynaya madaxa laga qabto hal xiro ma haday taas dhacdana qadiyadii waa la ogaan waa nuceeboobi wiilkayga mustaqbalkiisa iyo qoys ahaan oo dhanba ceeb baa nagu dhacay taana mar rabo inaan sameeyo يعني مجتمع دبك هيستا بان ربعنا دي شيغو يعني مجتمعين دبك هيستا لبير ما اها تلوين كاسيي حاكمدا دبرت ان الله سبحانه وتعالى الله بطو ويلكنا دawilku markii dambe uu isdhiibay caruurtan hadda iskuulada iyo dugsiyada aan geysanayno ma ka warhayna xaalkooda si waan u eedeeyay gabadha waxaan ku yiri wax 7 sano socda inaad ado hooyaa garan weydo horta gaabis baa meesha ku jiraan ku yiri midda koowaad hooyadu door weyn beelada ilmaha dhaqdhaqaaqiisa meeshuu aado jirkiisa wax walba waa inay ogaato laakiin maxayna lagu saliday naaga guriga ka shaqeeya damba kama laha hooyadii kuwaas laga yaabo haddii xataa kuwa yaryarina loo qubaynayo inay u qubeeyaan waxba kama oga dumarku waxba kama oga badan oo ka mid ah runtaa fiican soma هذه مصيبة
مسؤولية ضرو حابان كل تلي وحكم إذا هرتا ويلكين هالكن لقاك حيو ما دام بيأفعل سيدا أي تهاينا مانكي لبعضها كوسا من شرين أي شوغان وحيشك تيلي سوماليا كسو تشيدو سوماليا جيبان كوري ماشي لكن كسو تشيدو بالمركة هوري حكا لح بحب إذا تقول لك أنت كوسي لح شرو وحوي حتى نفتي سو بقايا هوش وسعنس تلاذو أبينا وشك بانكوري هدور وهدي لي وحلا قارن كرما وحلا قارن كري وحلا قارن كريم باكرة تنو كلا وحلا قارن كرم معها لمن كاسنا وحبا ويل سوى عاد يعاب من هو الله فرحمي ولا حوي ولا دباتيه ومنتها لقى قبطوا عروض ضمبو الصوماليين يويل ضمبو الصوماليين دباتين لمن كان سوشيك بانكويل مال بالله وصو هري المهم وحنا يقول شيء قصة وحوي كل جن هو يباتين كل جن أبيال بنا waxaa markaad maqasho markiiba carruurtaadii baa kugu soo dhacaysa Soomaa markiiba kuwaad eedada wahayd iyo kuwaad tabarito wahayd baa kugu soo dhacaysa Soomaa jira marka Soomaaliya fidnada ka jirta meeshan wax maskaxda bani aadamka gali kara ma qadiyadii waa la ogaan waa nuceeboobi wiilkayga mustaqbalkiisa iyo qoys ahaan oo dhanba ceeb baa nagu dhacay taana mar rabo inaan sameeyo يعني المجتمع دبك هيستا بان ربعنا دي شابه يعني مجتمعين دبك هيستا لبير معها تلوين كاسيي حاكم ذا تبررت إن الله سبحانه وتعالى الله بطو ويل كنا دولكم مركز دبوا يسديوبا عروتنا هذا السكول هذا يدوسيدا عن جيسرين مكور هاي النحال كذا مكور هاي النحال كذا سوى نوي ذي كبرنا وحن كل واحد تدرس سنة سعوديين هذا هو يا جرون ويده فرتجابس لما ماشى كتير عن كل مدة كواد هو يدو دور وين بلاد المها ربطاكيسا ماشو آل شركيسا وحول بوينة وقت لكن محانا لو وصل لذي لا أقول لك شقايا ضمب كمالا هو يدي كواسا لغايا وحدي حتى كوي يريرين اللو قبين إلي أقوبيا وحبك موقع وحبك موقع بدنا نكمل ذا فنطا في عن سما هذه مصيبة مسؤولية ضرو حابان كل تلي وحكم إذا هرتا ويلكين هالكن لقاك حيو ما دام بيأفعل سيدا أي تهاينا مانكي لبعضها كوسا من شرين أي شوغان وحيشك تيلي سوماليا كسو تشيدو سوماليا جيبان كوري ماشي لكن كسو تشيدو بالمركة هوري حكا لح بحب إذا تقول لك أنت كوسي لح شرو وحوي حتى نفتي سو بقايا هوش وسعنس تلاذو أبينا وشك بانكوري هدور وهدي لي وحلا قارن كرما وحلا قارن كري وحلا قارن كريم باكرة تنو كلا وحلا قارن كرم معها أيو وحط السي قار كم إذا رجع فحشة كسميلي خرق كتوس وايسلي ما الكلمة الله المستعان قبردي هوانا دي أما هو يدي waxay tiri aabihiis hadduu waxa maqlo suurtagal waxa horta nimankii inuu dilo oo gacan ula tago oo kow ka siiyo dilba dhiig inuu daadiyo shakiga ma jiro inuu dili taaday dhacdana waa ka sii daran tahay sheekada bal xataa wiilkan ka yaabay inuu dilo uu yiraahdo khalaas kan faa'iido ma laha uma sheegi karto odayga way ka baqaysaa waxay kaloo ku leedahay nimanka hadda taqaanaan dhimmal askar baa loo dhibay waa la xirxir baan ku yiri tad askaraho ciidanaha muslimiina jiree ayaga tii loo sheego nimanka waxa sameynaya madaxa laga qabto hal xirxir maya haday taas dhacdana wiil aan dhalay oo 13 jir ah yaa wuxuu ii sheegay
inay niman ciyaaro suuqiin ah oo Superpower iyo wax la mid ah ay isticmaalayeen muddo 7 sano 7 years ma noolaba wiilku dugsiga markuu ka soo baxo jidkay u istaagaan bal dugsigay ugu tagaan iskuulkay ugu tagaan 7 sano bay isticmaalayeen rag waaweyn dhowr iyo 20 jira ma noola haweeneydii waxa la waxay samayso malaha way iska ooyeysaa maxaan sameeyaa bay leedahay ila taliya waxay la qabta wiilku intuu kaxeeyey maalin dhaweyto haweeney baa soo wacday in badan bay telefoonka igu soo celcelisay anna mashquul baan ahaa xafiiskaygaan joogay qiso markii dambaan la hadlay طبعا qofka iyo magaciisa iyo ma sheegayno annagoo ilaalinayna maaragtay wax badan laakiin qisadu waa qiso xanuun badan waxaan ku sheegayna waxa weeye waxaan u baahanahay inaan ka taxadarno haweeneydaas waan wada hadalay telefoonkii bay walaasha waxay tiri iyadoo ooyeysa oo xitaa aan hadli karin oo hadalkeeda aan fahmi laahay oo hinta ay ooyeysa darteed yaa waxay ii sheegtay arrin aan aad uga naxay runtii oo shoog igu riday waxay igu tidhi